السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي النقالة قبل كسر جوكتن سو دواذا أيان إذا الله هاي شلك تقدامنا سوا فاطمة فيلسن قف كذا الله دواني قف فاطمة فيلسن هنرجينا إن العافية ما قبطان الحمد لله رب العالمين كهاد لدونا إن شاء الله تعالى سيدا أياد كنا نقول كرتا هوية فرحسن هدي أتهي هوية فرحسن وحد أود ولا هذا هاي إنها تصون صارته وبد فرحسن وبد عقلي بود ما شاء الله آدو في عيني هاي ayaad awood u leedahay inaad soo saarto hadii aad la kaashato ilaahay subxaana wa tacaala su-aasheena koobaad waxay tahay qodobkeena koobaad waxaa waaye haddii aad rabto inaad noqoto hooyo faraxsan farxaddaada waa inaada marnaba aada shuruud ku xirin oodan dhihin waqtigaas markaan gaadho ayaan farxayaa waxaa markaan samaysta ayaan farxayaa waxaas markaan hela ayaan farxayaa waa inaada saa dhihin waa inay farxaddaada wax kasta oo iyo waqti kasta ood joogto ay kuugu xidhan tahay ood waqti kasta aad farxi karto midda labaad waxaa waaye inaad adiga isku kalsoonaato isku kalsoonow adiga isku kalsoonow ku kalsoonow naftaada isfarxad geli is ammaan maxaa la dhihi jiray adigu kalsoonidaada boqolkiiba boqol waa inay ahaataa oodan noqonin qof dabcan hadda haddii su-aal la dhaho haddii wax lagu dhaho kale uu saameyn karo oo hadal yara uu qofku dhahay maskaxdiisa dhowr goor kusoo noqon karto ama ayba noloshiisa xataa wax ka bedeli karto oo uu ka qoomamay karo dhihi karo maxaasaa la ii jiri maxaysaa u dhacday maxay dadku saa iigu arkaan adigu inaadan noqonin qof saasa waa inaad noqoto qof hadaf leh midda saddexaad waa inaad naftaada adiga aada waqti siisaa walowba 10 daqiiqana ha noqoto 5 daqiiqana ha noqoto naftaada waa inaad waqti siisaa markaan ku leeyahay waqti kasta ood heli karto walowba ha ahaato intaad koob shaaha soo shubato adoo keligaa inaad si degan aad u cabto naftaada waa inaad la sheekaysataa waa inaad adiga is ammaantaa waa inaad adiga is dhiirigelisaa waa inaad adiga kalsoonidaada aad isku qabto heer waa inay gaadhaa aad aamintaa wax kasta haddii ay dhacaan inaan adiga dee lagu leecin karin waa inaad aamintaa midda ku xigta waa inay noqotaa inaad noqoto qof cafis badan oo sababtoo ah qof kastood cuqdad u qabto ama qof aad isku dhacdeen ku caayay ku kaa khaldanaa ku aad caadiba isugu dhacdeenoo midkiinba hadduu rabo ha khaldanaadee midkiin uun khaldanaa waa inay noqotaa waa inaad iska cafisaa cafiska janno ayaa lagu galaa sababtoo ah qof haddii uu qofku cuqdadaysan yahay oo wax badan ka dhex guuxayaan ma farxi karo oo waxaa ka qaalib noqonaya dee waxaa kasoo gudihiisa ku jira uu la murugoonayo uu la xanaaqayo ee kolba uu xasuusanayo saasuubana la farxi karin marka inaad qof kasta ood wax u qabto waa inaad iska cabisaa oobad iska ilowdaaba waxaas dhan iskaba ilow adigu haddaad adigu wax kasta iska ilowdo waadna farxaysaa waxaadna noqonaysaa qof habiya waxaadna noqonaysaa qof heerka uu rabay isagu gaadhay